halkan waxaynu ku arki doonaa dhowr eray oo laga hormariyo xarfahaas miss ereyga hadii laga hormariyo inta badan yacni waa wax markaad si qaldan ugu dhawaaqdid ama meel qaldan dhigtid ama si qaldan u fahantid. So when you understand wrongly or you pronounce wrongly or you spell wrongly or you behave wrongly ayaynu isticmaalaynaa miss. tusaalayaal aynu bixino, tusaalayaasha laga yaabaa inaynu ku fahano. ereyga waa haddaan dhaho misplace waa wax markii aad lumisid meeshii loogu talagalay maadan dhigin meel kale aad dhigtay dadna hadhowti inay lumaan bay noqonaysaa. For example aniga camal hadda most of the times I misplace my keys, furayaashu iga lumaan. So waxaan leeyahay I have misplaced my keys again, mar labaad baan furayaashu lumiyay. So ma aragtid. ereyga labaad miss laga hormariyo waa misunderstand waa qof ama wax inaad qalad u fahantid. I think you misunderstood me. waxaan u maleynayaa inaad si qaldan ii fahantid. misunderstand yacni wax ama qof inaad si qaldan u fahantid. midka saddexaad waa mispronounce waa ku dhawaaqid. mispronounce haddaan dhaho waa erey si qaldan inaad ugu dhawaaqdid. A lot of students mispronounce this word. ereygan ardayda intooda badan si qaldan bay ugu dhawaaqaan. isku day salmon elta waa silent. so ma aragtid. so waxaan leeyahay a lot of students mispronounce this word. ereygan si qaldan bay ugu dhawaaqaan. midka afraad waa misbehave waa inaad si qaldan ama si xun u dhaqatid. behave waa qofka qaabka u dhaqmaanay, behaviorga dhaqankaada qaabka u dhaqatid. haddaan ku dhaho you are misbehaving yani si xun baa u dhaqanaysaa waa. okay, midda u dambeyso spell waa hingaada ereyga, yani qaabka ereyga loo hingaadiyo ama loo qoro. okay, a lot of students misspell this word. ardayda intooda badan ereygan si qaldan bay u qoraan. so misspell marka waa inaa erey si qaldan u qortid. I hope it makes sense. marka waxaan dhahay miss, halkan waxaynu ku aragnay dhowr erey oo laga hormariyo miss inta badan ereyga hadii laga hormariyo waxaa laga wadaa wrongly ama qalad. yes, and I hope you understand. cashiradan haddii ay ku anfaceen groupkeena WhatsApp-ka kusoo biir. cashiradan oo kale maalin walba kusoo dira, waana free, waa bilaash, wax lacag lagama rabo. haddii kalena TikTok-geena follow soo dheh, share garee, support garee. Until next time, stay safe and God bless you. Bye bye.